السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومركلي وللكين أحمد قدر maantay waxaan idin hayaa application codkaaga ka dhigi doona biidnillaahi alkariim cod aad iyo aad u fasiix ah kuna qanci doonaan dhageystayaasha ku dhageysanaya markaas codkaaga idinka hor dhicin applicationka waa kana magaciisu waa Nose Reductor. Applicationka waa application aad ka heli kartid Google Play Store-ka kaliya waxaad ka qoraysaa Nose Reducer. sidoo kale description-ka video ama sanduuqa waan kugu reebi doonaa kalkaas ka download gareyso. Application-ka waa application aan inaba caadi ahayn, wuxuu codkaaga ka dhigi doonaa cod aad iyo aad u fasiix ah. kaliya waxaa muhiim ah meesha aad codkaaga ku duubaysid inay ahaato meel codkaaga fasiix ah aan laga buuq aad iyo aad u badan uusan ka jirin. marka application-kan shaqadiisu waxa ay tahay kaliya in uu background noise ka dhex yeeryeeraya inuu ka ilaaliyo. waxaa laga yaabaa in jawigaaga aad ku jirtid uu degan yahay balse ay jiraan dabeelo yaryar ama shucaac yar oo ka jira afkaaga ama hareeraha kugu hareeraysan ama bay'ada kugu hareeraysan. marka biidnillaahi alkariim application-kan wuxuu kaa tirtirayaa gabi ahaanba codkaagii oo dhan ama codkaagii oo background noise-ka ku jiray. application-ka aan ku wada dhufano si aan u wada jeedno. application-ka first frontigiisa hore sidan ayuu ku soo bixi doonaa oo magaciisu waa Nose Reductor. marka waxaasoo kale cancel iska dheh. marka waxaa jiro sambal yar oo ku siinayo application-ka si markaasi codkaaga haddii aad ku qanacdid waa kaas, haddii aad ku qanci weysidna hadda aan sambalkan isla wada dhageysano oo wax yar 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. سأجدين نينك عدكيسا وكان عدكان وعد أورجينال أو أصيغ نينك سو دوي. مركا سي aan marka noise-ka uga saarno waxaad ku dhufanaysaa haddii aad cod soo duubatay adiga laba option ayuu ku siinaa. option koowaad inaad ogaatid codkaagii originalka ahaa oo play original meesha ay ku qoran tahay. option ka labaad waa play noseless, waa codkaagii originalka ahaa ee laga qaaday ama laga tirtiray nose background waxa la yiraahdo. aan kii hore waan wada maqalnay waxaa ku jiray nose aad iyo aad u badan. marka kan aan isla wada aragno kan markii noseless ama codkii laga tirtiray aan isla wada aragno 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. isku mid maahan, waa ay aad iyo aad ay u kala duwan yihiin. kii hore waxaa ku jiray dabeel sidoo kale buuq yar sida markaasi uu codkaaga uga dhigay waa wax aad iyo aad u sahlan. kaliya application-ka wuxuu u baahan yahay markii aad la soo degtid marka ugu horeyso inaad internet aad ku kicisid. waa first front waa internetkaas bis ayuu kaaga baahan yahay. internetkaas mar kale kuma weydiin doono, waa application aan ka hubo super 5 star ayuu waan aniga application aan inaba la dhacay. marka haddii aad adiga cod soo duubatay ama haddii aad rabtid inaad duubatid meeshaas ayaad ku dhufanaysaa option-kaas labaad, kadibna meeshaas oo recording-ka ayaad ku dhufanaysaa total ayuu kuu duubayaa. kadib waxaad ku dhufanaysaa waxaa kuu soo baxaya denoise. hadda aniga tusaale ahaan waan duubayaa cod, tusaale ahaan waxaan dhahayaa 1 2 3 4 5 6 codkaagii hadda file saved successfully. macnaha wuxuu kuu sheegayaa in codkaagii recording-ka hadda aad duubtay in si la diiwaan gelshay oo lagu diiwaan gelshay si markaasi codkaaga noseless looga dhigo. marka si aad background uga qaadato waxaa ku dhufanaysaa denoise. waa kaasa application-kan markii intii ku jirto denoising-kan ama intii la diyaarinayo denoising-kan ama background noise-ka intii laga jarjarayo waxaa ka mamnuuc ah meeshan ayuu attention kuugu bixinayaa. attention-ka koowaad waa minimizing in aad ka baxdid ama saan oo kale aad dhahdid okay ama meel kale aad ka tagtid. waxaa dhici karta in mayveil, waxaa dhici karta the process mayveil habka uu lagu sameynayo waxaa dhici karta inuu ka halaabo. hadda aniga waa iga halaabo ayaan filayaa. okay
for example hadda haddii aad rabtid in aad tusaale ahaan aniga hadda cod ayaan duubay sax aniga hadda recordingkan always ayuu codkayga u maqan yahay haddii recordingkan aan stop dhaho halkaas hadda wax ma maqashiin sax waa wax sababta waxay tahay aniga hadda recording ayaan ku jiraa screenkayga ayaan duubaya marka haddii if haddii screenkaygaas aan duubo oo stop aan dhaho kadib ayuu play original iyo noiseless ii dhigaya tusaale ahaan hadda aniga waxaa idin tusaya hadoo kale waxaa laga yaabaa inaad ku soo duubatay applicationkaaga mobilka lagugu keenay sida recordingka mobilkaaga lagu keenay originalka ayna ku soo duubatay haddii markaasi aad rabtid inaad ka soo qaadatid ama soo qaadatid waxaad ku dhufanaysaa import laba process ama laba hanaan ayuu ku siinayaa hanaanka koobaad waa audio codka aad rabtid inaad noiseless ka dhigtid ma audio mise waa maqal mise codka aad rabtid inaad noiseless aad ka dhigtid ma video ba labada option ba waa kuu furan yahay mid aad ku dhufatid waa kuu furan yahay midka haddaad ku dhufatid audio haddaad ku dhufatid codkaaga macnaheedu waxay tahay audio ayaa loo filteraynaya kadib the noise waxa la dhahay noise background waxa la laga qaadayaa option kalabaad videoga haddii ku jiray nose sida waxaa laga yaabaa inaad video soo durto video shaac inuu kugu jiro waa laga qaadayaa biidnillahi alkariim kaliya waxaa muhiima goobta aad wax ku duubaysa inaad hada goob jawi degan okay markaas aad soo qaadatid the noise hore ayuu iska asaga kaliya waxaad ku dhufanaysaa meeshii aad rabtay totally asaga ayaa optionka isqaadanaya oo denoising iyo wax dhan isku sameynaya sida aan kuugu soo sheegay ka bixin hadaa ka bixin waxa laga yaabaa inuu ka halaabo sida hadda aniga aan ku tusayba codka ma shaqeynayo sababta labaadna waxaan ku jiraa recording soo marka waxaan u maleynayaa in applicationka aad la dhici doontid biidnillahi alkariim fadlan applicationka waxaad ka helaysaa sida aan hore kuugu soo sheegay Google Play Store fadlan videoga sidoo kale haduu ku qanciyay like saar asxaabtaadana la wadaag si markaas asxaab badan internet isticmaalin ay uga faa'iideystaan waxaan idinkaga tagayaa sida iyo amaana Allah waxa inoo balanaa videoga xiga sida iyo amaana Allah